aabaha Soomaaliga ah ee inta guursaday ilmo dhalay farta ka saaray dawlad Islaameed ee inta baxay ama tagay Soomaaliya ama tagsiiro ma aho bish lacag ay u soo dhacdo haddana aan ogoleen inuu ilmihiisa bisho familkiisa haysto ninkaas maxaa ku tilmaami kartiin jawaabta adinka idin deyna micnihi waa qayr mas'uul totally wuxuu ka tagay mas'uuliyad oo lahaa oo u dhiibay dad kale dawlad Islaameed maalinka ay imaadaan ku carruurta qaato hooyadan kadib ilmaha ay maxaa ku heewaysan dagaal u galay wuxuu tagay ilmaha maxaa iga qaatay maxaa igu soo sheegay in la qaadana oo intay jirto marka hore maxaad ugu dhiibtay dadka qaadanaya maanta taasaan weydiinaa hooyada ayada dhinaceeda su'aasha ka weydiinaa waxay tahay maxay tahay sababta aad ninkaaga shaqeynaayo oo aad og tahay inuu shaqeynaayo aan dawladda u sheegaynin maxay tahay sababta aan ugu qasbaynin dawladda inay magaciisa hesho oo la soo qabto leeyahay saaxiib lacagta carruurtaada baxso ani gabadhan ama qabin adiga idin taala sheeko labadiina idin qosayso waaye maxay u sameynay waxaan la kulmay hooyooyin badan oo runtii su'aashaas toos u weydiin karo maxaad samaysay dhibaatada noocaan oo aad dawladda u qiyaamaysiin carruurtiina u qiyaamaysiin noloshiina lamaanan u qiyaamaysiin because qiimo kuma haysatid inaad la noolaatid nin habeenkii inta kuu soo dhaxo dariishada ka baxaayeen nolol kuma haysatid waa run isku ognaha waaye nolol kuma jirto in laba qofood oo dhan oo isla nolol ay kala dhuntaan micni oo dhaho ilmaha aniga ma u wadi kari xanaanada carruurta sababta inay arkaan ma aha kuwii ilmaha uma wadi kari oo balanay leeyihiin dhakhtar ma wadi kari sababtoo ay arkaa in aabuha in la ogaado ma aha marka ilmaha waxaa dhahay maxamed canab okay oo ku qanacsan tahay okay laakiin waa ceeb annaga taariikhda noo gashay waa ceeb magaca Soomaaliyeed u baxday statistics Norway maanta waxaa ku qoran ilmaha Soomaaliyeed 60% inay ku dhasheen guur la'aan waa ka xumaa inaan u sheegay information ka wasiirka laakiin waddankan dadka Soomaalida ah degan oo u malaysan inay Soomaali yihiin yes waa Soomaali laakiin guur xalaal kuma dhalan nastaba ugu riskaas wixii laga qabanayo kulay markay dib u soo laabtaan isweydiiyo way because passportka ay wataan magacyada ku qoran oo in dib loo eego dhaqan anaga uma lihin inuu la yiraahdo Maxamed Canab may ma u lihin dhaqan oo ka xumayna iraado laakiin uma lihin dhaqan soo waxaan rajaynayaa dowladda Soomaaliya arrinta safgeena sharci ka soo saarto maxaa yeelay waa xadgudub diiniyan diinta lagu xadgudbaayo waa xadgudub lagu xadgudbaayo nolosha cunugaas iyo magaciisa iyo shakhsiyadiisa because magacaas uu la meel maraa uu soconaa hooyooyinka aan weydiiyay jawaabtooda aydan siinayna waxaan igu dhahay anigu waxaan u baahanahay walaalo in ay soo gasho dhaqaale aniga leeyahay oo nin maamulaynin okay dhaqaale adiga leeyahay ku soo gasho laakiin lix cunug aan leeyahay subax walba inta waxa u sii jiiday midba meel adoo baaba'san soo laabanay waa jiifanay haddana waa bixay waa soo kala jiiday telefoon aan aagalay taasaa micnihii kaaga fiican in dhaqaalaha yariiska oo adiga aad shaqaysan karta ama ninkaaga uu shaqayn karo aad isku meel inta wada geysatiin wixiina aad kalsooni ka samaysiin oo nolol ka samaysatiin taas ma ka qurux badan